kolka qofka ay maalintiisa tahay maanta aroos bay u tahay dhammaan macallimiinta adduunka oo dhan gaar ahaan macallimiinta waddanka Djibouti wax ka barta ardayda macallinkuna waxa weeyaan waa laf dhabarta bulshada in la maamuso la xishmeeyo la xurmeeyo la weyneeyo uu mudan yahay sababtoo ah waxa weeyaan cid kasta oo xil haysa ama cid kasta oo qoyahana wax soo baray waa macallin waxa weeyaan haddii ay madax tahay iyo haddii ay maaragtaan ay shacab tahayba cid kasta oo aqoonyahana waa marihii ka soo baxay beerta macallinku beeray sidaas darteed macallinku waa laga maarmaan in la weyneeyo la xishmeeyana waa uu mudan yahay shucuurteeda haddii aan kugu noqdo waxa weeyaan maalindii maalmaha kale aad iiga duwan weeyaan waa maalin igu qaaliya waa maalin aan xasuusto waa maalin aan sugno marka waxaan leeyahay waxaan hambalyeeynaya ugu dambeyn dhammaan macallimiinta adduunka oo dhan meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay hambalyo maalintiina gaar ahaan waxaan hambalyeeynaa macallimiinta reer Djibouti meel kasta ay joogaan oo leeyahay bonfet ugu dambeyn waxaan hambalyeeynaa macallimiinta dugsiga gaarka ay la joogta iyo maamulaha dugsiga Shukri dhammaan waxaan leeyahay aad iyo aad baan ugu hambalyeeynaa maalinta ciidiina ciid wanaagsan baan ka leeyahay howlaha qaybta ka ah meelmarinta siyaasadda loogu talagalay in lagu qorsheeyo dhalmada carruurta iyo daryeelka caafimaadka hooyada iyo ilmaha ayaa la soo gabagabeeyey wasaaradda haweenka iyo qoyska oo kaashanaysa sanduuqa qaramada midoobay ee dadweynaha ee FUNYAB ayaa soo hindistay kulamo ay la yeelanayeen qaybaha kala duwan ee siyaasadda iyo mas-uuliyiinta xafiisyada kala duwan ee dowladda sidii xal loogu heli lahaa arrinkaasi wasiiradda haweenka iyo qoyska Marwo Muna Xumed Xasan iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta xukuumadda iyo wakiilada qaramada midoobay